dalkaad galaysiin habeen maal waa shaqaynaysiin wadankiina u dhimanaysiin diyaar u nahay ku faraxsanahay gobolka banaadir waxaan rabaa inaan iraado horta marka hore waxaan rabaa inaan idinkaga mahadnaqo haye si fiican ma lii maqlaa marka waxaan rabaa inaan idinkaga mahadnaqo qof walba aan duruufaha adag uu ku soo shaqaynayay waqtiyada dheer qof kasta uu soo shaqaynayay iyo sidoo kale xaalado kala duwan oo qof walba soo wajahay oo ay qiyaasi karo qaar idin ka mid ah oo saaxiibadiina maanta in aysan halkan joogin oo ay yacni duruuf shaqa ku geeriyoodeen allah u naxariisto qaar idin ka mid ah ay ku naafoobeen qaar idin ka mid ah ay ku dakanoobeen oo hadda xataa ku dakanaysan yihiin dad badan oo qiimo badan oo sharaf leh oo hooyooyinkeenna ah iyagoo shaqada midda ugu quruxda badan ugu wanaagsan oo dalka ka haya bilicdiisa oo dhibaato ku gaara qaalkood naftooda ku waayey taasna aan horta ilaahay ha u naxariistay intii dhimatay intii dhibka ku gaarana ilaahay ha u dhib yareeyo annaguna waajibkana saaran waxay tahay dadka intaas soo dadaalayay ee shaqooyinkaas kala duwan soo qabtay ee mas-uuliyadaas soo saaray ee duruufahaas ku soo shaqaynayay ee runtii aan qiyaasi kara maanta meesha ay marayaan inay tahay alla ilaahay maanta rajo imaatay dadka oo halaha soo wada qabanaya waxaan rabaa kalsooni inaan siiyo oo fiican kalsoonidaas oo ah intaas maanta qof og oona diyaar waa inuu idinla shaqeeyo ayaa maanta idin yimid inta meel aan soo joogay waxaan ogahay dadka qaarkood marxalo badan meelo aan ka soo shaqeeyey markaan la kulmay waxaa laga yaabaa qof aabbihii ama hooyadii ku geeriyooda shaqada oo maanta meesha keliya uu fiirsanaya inay shaqadaas taamo uu ka shaqaynayo waxaa laga yaabaa inaan ku soo arkay dad duruufahaas adag ku dhaawacmay oo meesha joogay waxaa laga yaabaa inaan ku soo arkay dad duruufahaas ku jiray kuwa la mida oo ka dambeeya oo mushaar qaadanaya kuwaas oo mushaar qaadanaya ama laga hormarinayo maanta wixii ka dambeeyo qofka ugu hooseeya shaqaalaha iyo qofka ugu horeeya oo la hubiyey si cadaalad wax ku qaadan doona insha allahu tacaala annagu waajibaana saaran idinkana waajibaa idin saaran annagu waajibkana saaran haddii aan nahay maamulka dowladda hoose iyo saaxiibada ila shaqeeya iyo dadka halkan idinka laftirkiina oo idinla shaqeeyo idinla adeego waajibkana saaran waxay tahay inaan ilaalinaa qof walba oo shaqaale ah ee dowladda hoose u shaqeeyo xaqa uu dowladda hoose ku leeyahay qof walba inaan ilaalino waa waajibkana saaran waajibka idinka idin saaran marka waajibka idinka idin saaran oo aan aniga ku jira oo dhammaanteen ina saarana waxay tahay xaqa ee dowladda hoose nagu lahayd annagana waa in nagala helaa saa darteed marka labadaas shay waxa u dhexeeya waa mugdi
marka waxaan rabaa maanta inaan hadalkii koobo waan qiyaasi karaa dadka qaarkood duruufaha adag ee hadda lagu jira dalka hadday noqon lahayd abaar oo qof walba xaaladii uu ku jiray xaalad ka duwan ee maanta soo wajahday waxaa macquul ah qofka gurigiisa 4 qof joogi jirtay maanta inay 10 joogto kii 10 joogtay maanta inay 20 joogto oo duruufo adag lagu nool yahay haddana runtii idinkana waxa laydinku tuhmaya ilaa alla ilaah dawladda hoose u shaqeeyaan tuhmkiina insha Allah tuug fiican noqon doona mushaarkiina waa heli doontaa dhawaan ilaah idinkiis waxaana ku dadaalaynaa ilaah idinkiis isbuucan gudihiisa inaan mushaarkiina heshaan ilaah idinkiis taasna waa ku dadaalaynaa oo maanta waxyaabaha aan ku soo daahay ayadaba ka mid ahayd وما سنتين هذينكي مركا هذينكي سكر الرئيسة أنت عن جوج أنتي نجوبتا أنتي نديستي أنا جو حيروح أكون شقين دون دولة وناجا يوضع شقين تبع أساس وحقولنا قندونا ورت حق صوري إن شاء الله تعالى قف والبقى ماشى جوجا كان جعنتي بجارت إيمتك أنا جارن حق صوري إن شاء الله هو جارد أنت صوته قف كما ضحد ملك السجوجا waxaan naga rabaa anaga shaqaalahan waxa waajib ma saaran keenna ugu hooseeyo kan ugu sareeyo laga bilaabo maanta dadaalkii aan heen jirnay in aan laba jibaarno sababta waxaan ku laba jibaareynaa annagoo dantii duruufta adkeyd aan ku soo shaqaynaynay maanta waxaan haysanaa iftiin ayaa noo baxay iftiinka noo baxa runtii ma ahan aniga kaliya meeshan imid laakiin iftiinka noo baxay dalka isbedel ka imaaday madaxweynaha oo madaxweyne shacab ah taqaaniin ra'iisul wasaare oo aragtay ra'iisul wasaare shacab xukuumad shacab ah shacabkuna waxay ka bilaabataa shaqaalaha dawladda ka bilaabataa dadka idinka matashiin waliba mas'uuliyadda aan qof walba sii saaraya dawladda hoose ka shaqeeyo waxay tahay hal mas'uuliyad waxa jirta oo dadka kale oo dhan aan saarnayn mas'uuliyadda qof walba marka wax qabanaysidna maanka ku qaado waxa la rabaa inaysan ka harin mas'uuliyaddaada dadka waxaa loogu sharfaa qofka martida ku ah markuu qof marti ku yahay waxa laga yaabaa duruuf kasta ku jirta marxalad kasta ku haysato inaad laqdid oo qofkaas martida ah aad martinimadiisa ilaalisid adigana marti marka aad dhowrtid si kasta u karaamaysan tahay dawladda federaalka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed dhanba waxay marti u yihiin gobolka Banaadir gaar ahaan caasimadda dalka ee Muqdisho marka maadaama marti soore aad tihiin qofka martida ah ee albaabka ka soo galay ee marti ku ah kalarkiisa lama weydiiyo dabeecadiisa lama weydiiyo waxa uu soo qabto lama weydiiyo ilaa waa marti Soomaa marti waa la sharfaa annagu waxaan dadka martidaas noo joogta oo magaaladan Muqdisho qof kasta noo imaaday annagu waxaan dadka marti soorayaasha qof walmaankaaga waxa ku qaataa qofka marti soorayo waxa laga rabaa inuu ku soo sharaf iyo karaamo dadka u shaqeynayno waa inaan sharaf iyo karaamo ku soornaa insha Allah martidaas marka aniga bilaabata aniga maanta kulligiina marti ah maadaama qofka ugu horeeyay maadaama inuu u adeego dadka ay tahay dadka ugu horeeya u adeegayna idinka ay ka mid tahay martinimadooda labadaas sal u noqonayso waa xurmo iyo xaq soorid idinkan taas la karaba insha Allah taala marka waa maasantiin waajibaadka shaqo oo qof walba saaranna sidii uu ahaan jiray ayuu waajibaadkiisa u qabsanayaa nidaam ay imaan doona insha Allah taala oo qof walba ku shaqeyn doono laakiin waxaan hubaa oo ballan qaada intiina maanta meesha joogto kiina darajada ugu hooseeyahay ayaa dadkan ugu xaq badnaanaya ogaada marka maadaama iftiinkaas aan aragno oo kiina ugu maanta shaqada hooseeyo uu xaqii saxda heli doono wax u dhaxayn doona aniga iyo kiina ugu hooseeyo ma jiri doonto degmooyinka imaan doona xaafadaha imaan doona xafiisyada imaan doona si dadka meesha joogo xurmada iyo xaq sooridda u baahan yihiin ay aniga iga helaan idinkana waa idinka rabaa insha Allah taala waa yeeli doona waana mahadsantahay boqolkiiba 100 rahmatullahi